daawadayaal halkan naga daawanaysaan waa Universal TV qaybtiisa North America waa anigoo Sakariya Aadan haddaba sida ula socotaanba dalka Soomaaliya siyaasadiisa marba xir ayay soo martay isbedel badan ayaana ka jira dalka Soomaaliya madaxweyne cusub ayaa la doortay haddaba waxaan rabnaa galabtay in aan ka wareysto Professor Ahmed Ismail Samatar ahna Professor wax ka dhiga jaamacadda Macalester College waxaana dhigaa dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha adduunyada Professorka ayaan waxaan doonaynaa bal xaaladda cusub ee dalka Soomaaliya dhawaan asagoo ka soo noqday dalka Ingiriiska nooga sheekeyn doona waxyaabaha ku soo arkay dalka Ingiriiska sidoo kale Professorka ayaan wax ka wareysan doonaa shirka lagu qaban doono May London oo ku saabsan Soomaaliya iyo Somaliland kii Ankara Soomaaliya Somaliland xaaladda jubooyinka iyo siyaasadda guud ee dalka Soomaaliya Professor Ahmed ku soo dhawo marka hore aad mahadsantahay Professor maxaa cusub wax badan baa cusub waxa cusub wali dawladda Muqdisho laga sameeyay ayaa wali cusub inkastoo kolka ay daadeediina muujinayso 7 bilood ku dhowdahay waxa cusub shirka lagu qabtay magaalada Ankara ee Turkiga oo ah Somaliland iyo Soomaaliya bal in loo furo albaab ay wada hadal ku yeeshaan oo isla eegaan taariikhdu halkay taagan tahay inay dib isku soo noqon karaan in kale laga wada hadlo waxa cusub anigoo imika ka soo noqday muddo 4 cisho laga joogo magaalada London oo la weydiiyay in waraaq keeno ka hadlaysa qiyaasta aan ka qabo waxa la yiraahdo stakeholders dadka inta waaweyn ku leh qadiyada ummadda Soomaaliyeed miiska soo fadhiisan kara ayaa cusub waxyaabo badan oo caynkaas ayaa soo raad ba cusub inkastoo aad noo kala saartay tan ugu horeysa waxaad la socotaaba 7 bilood inay jirto dawladda federaalka ee Soomaaliya misleedahay marka 7 bilood dawladdu waxyaabo badan ayay qabatay mise isleedahay 7 bilood waxyaabo badan ayay qaban oo loo baahan yahay wali inay qabato waa loo baahan yahay wax badan inay qabato waa loo baahan yahay laakiin wax hawl waa la galay oo dhismaha dawladda la fahanteeda ciyaar ma in dawlad la dhiso oo dawladdaas ay noqoto mid ku dadaashay inay keento rajadii laga qabay waqtiga cusub ee furmay oo dawladisku wax waqti qaato weey taasi waa koow warku wuxuu nagu soo gaadhayaa in dawladdu ay aad u gacanta ugu qabatay oo ay wado sida amaankii loo soo dhisayo amba dhulkii dawladdu ay la soo hadhay ee laga saaray ciidamadii argagixisada lagu sheegayay ee qabsaday laga saaray amba ha noqoto magaalada Muqdisho oo kale sida loo adkeynayo nabadgelyadeedii oo ciidamada booliiska ilaalinayo quwad xoog leh loo siinayo training kan loo sii adkeynayo waa la sheegay amura caynkaasi inay jiraan waa warku nagu soo gaaray waan wanaagsan tahay laakiin anigu waxaan qabaa halkii aynu doonaynay inaynu ka duulno markii doorashada ay dhamaatay halkii kamaynaan duulin baadkuna inuu inaga yaro qoyay ayaan qabaa laakiin wuu engegi karaa haddii dadaal cusub la keeno wuu engegi karaa waxaan taa u leeyahayna waxa ugu horeeya waxa weeye dawladda dhismaheegu aan waxaan qabaa laba amuurood ummadda Soomaalidu inay haraad weyn u qabtay maantana u qabto wali waxa weeye dawladda la dhisayaa inay noqoto mideed ummaddu ay iska dhex arki karto waa laga maarmaan oo la iska dhex arki karo laakiin waxa inta ka weyn inay tahay mid karti la timaado karti maanta waxa halka ummadda Soomaalida curyaamiyay ee qabiilku u xoog weynaaday waa kartidii baabaaday kolka hadaad tidaadada reer hebel baan intaas kugu filan oo qualification ku noqonaysa inteeda badan saadamad gar karti degdega oo waliba karti iyo waaya arag wada socda in la helo markiiba oo lagu dhaqaaqo waxaynaan hore u sameynaa ugu yaraan 20 sanadood ugu dambeeyay amba 50 sanadood inuu dawladda ahayna in la bilaabo oo laga dhawaajiyo maxaa kamida waxa kamida dadka waqooyiga iyo dadka koonfureed inay si xaq ku jiro dawladda u qaybsadaan iyada oo la tixgelinayo karti iyo xalaalnimo iyo daacadnimo in la qaybsado laakiin in xisaabtii hore uun lagu soo celiyo sharku wuu ka yar duwan yahay kii hore laakiin waa isla halkii uun waxay kamid tahay waxyaabaha hakiyay inaynu duuli lahayn inaynaan duulin ayay kamid tahay Professor marba daa sheegtay ka hadashay waxaa jira shir dhawaan lagu qabtay Ankara oo Soomaaliya iyo Somaliland ay ku heshiiyeen 7 qodob adii professor ahaan shirkaas sidaba u aragtay
intaan intaa ku gelin in yaroo kale aan ku darayaa oo dhaliil ah waxa weeye warkana soo gaaraya wuxuu yahay oo waliba aad iyo aad oo ah war buuxa xasan sheekh dowladda ummadda Soomaalidu ay u dhiibtay oo aan ka mid ahaa dadkii codka siiyay inay u eeg tahay inuu isagu aanu anba fahmin amba ay ka tahay ukas in uu ka talaabsado sida shaqada loo kala qaybsanayo isaga iyo ra'iisul wasaaraha qaynunka dastuurka cusub wuxuu dhisayaa ra'iisul wasaaruhu inuu yahay qofka executive officer dowladda madaxda u ah ee shaqada maalin walba wada isaga iyo wasaaradda iyo inta la socota madaxweynuna uu yahay barosinkii weynaa halka fadhiyay ee marka hawlaha waaweyn ay yimaadaan ee u baahan xalaalaysiga ya in loola tago aadan cabdullaah cusmaan allahu naxariiste madaxweyne la mid ah Afrika soo maro sidaas uu yar yahay amba ma jiro xasan waxa ahayd in uu eeg tahay imakan aan kula talin lahaa daris aadan cabdullaah cusmaan taariikhdiisa iyo sidoo u dhaqmi jiray daris hadaa doonaysid madaxweyne inaad noqoto sidaa sharaf u leh oo iska xakameeya inaanu xukunka iyo wax walba isagu u haleelin oo max walba isagu gacanta aanu ku dhigin taas waa tiina baabis wadanka corruption bay keentay xashay keentay akhlaaq xun bay keentay waa wixii nabaabiyay qofka madaxda kursiga ku fadhiya inuu wax walba maxaan ku raay warqad walba isaga laga soo saxeexo waana ku soo arkay xamar markii dawladii shariif intay jirtay waan ku soo arkay xafiiskiisaan soo arkay oo dadku sida u dhooban yihiin oo xafiisyo kale la tagaa miyana jirin man dadkii ku yiri waa sidaasdan marka taasuna waxa aad moodaa durba inay soo cadaanayso halkaan kaga hado arinta Ankara de Somaliland iyo Soomaaliya labadii wadan ee abuuray jamhuuriyadda Soomaalida 1960 markii June 26 iyo July la isku daray koodii July la bilaabay labadaasi oo maanta kala fogaaday amba kala tagay inay isku dayaan inay wax wadaagi karaan oo wadaagaasi oo isku soo dhaweeyo mar labaad neeftooda iyo aragooga iyo maskaxdooda ayay talaabad yar ay ka mid tahay ee la qaadayay in la qaado toddoba qodob baa laga soo saaray wax weyn oo maanta laga dhigi karo de raasamaal ma aha laakiin de hadal wanaagsan baa la isiri oo ay ka mid tahay in xumaanta la yareeyo cadaawada la yareeyo in dhaqaalaha adduunyada ka imanaya waxa yar adduunyada ka imanaya si cadaalada malaha wax loo yar qaybsado arrimo caynkaas laga wada professor su'aasha isweydiinta le waxay tahay haddii Somaliland iyo Soomaaliya meel wada fadhisteen oo bisha soo socoto Mayna shirka London waxaad ogtahay Somaliland madaxweynahooda uu sheegay inuu ka qayb galin marka hadalkan socda maxuu tarayaa mar haddii madaxweynihii Somaliland uu sheegay marnaba mowqifkooda goonistaaga inaysan marnaba iska ka noqonin maxuu tarayaa marka wada hadalka Soomaali iyo Somaliland fiiri horta de shirka soo socda May anigu sidaan ku akhristay ma aha shir ujeedadiisu ay tahay in lagu habeeyo Somaliland iyo Soomaaliya sida la isku soo celinayo waxa anigu warkay soo gaaray yahay London waan ka yimid mudaafir cisho laga joogo in aw shirkaasu yahay mid lagaga hadlayo dib u dhiska Soomaaliya iyo noloshii wadanka iyo dadka Soomaaliyeed dib loo dhisayo waxa dhaqaalaha iyo caafimaadka iyo baahiyaha mushtariga iyo hawlaha caynkaas laga shaqeeyo waana mid loo baahan yahay in si wanaagsan loo galo oo adduunyadu ay keento kayd xoog la ay keento laakiin waxaan qabaa dadka Somaliland ku nool iyo madaxdoodu ma qabo inay yihiin dad indhaha iyo dhagaha iyo sanka iyo afka xidhay anagu ma qabo inay yihiin waxba ku kalifay ya in ay yiraahaan wadankii waanu ka baxaynaa jamhuuriyaddii markii horena dadkii dhisabaanu ka midnahay imikana waxaanu goosanay inaanu baxno inay yiraahaan waxba keenay waxay u baahan tahay waxa keenay inay dadka Somaliland iyo madaxdooduna ay adduunyada u macneeyaan ya walla arko iyadoo sida u tafaqiya tiran la arko dadka Soomaaliya jooga ee madaxda xamar fadhida ay wakiilka ka yihiin ay fahmaan oo darsaan arintaas oo ay keenaan attentionkii loo baahnaa iyo dee maskaxdii loo baahnayd in arinta lagu fahmo oo doodeeda la galo soo aad garmis anu dadka waxaan ku yiraahaa Somaliland dadkeega laascaanood ilaa Ceerigaabo ilaa Saylac iyo inta u dhaxaysa
iyagu gudahooga dee waa kuwii ka tartamayo xisbiyo kala gooniya jiray laakiin waxay ku heshiiyeen ingiriiskiina inay ka fasax qaataan oo iskaga tagaan ummadii Soomaaliyeed kalena ay ku biiraan oo waliba iyagu hadiyadii dawladnimo geeyaan Muqdisho waxaan ku leeyahay marka dee walaalahayga koonfur degan iyo madaxda koonfur joogta warda goormaad idinkuna hadiyad keenaysaan ya ana wadan dadkii waqooyiga ee Soomaaliland waanu keenay hadiyadaas tii ugu weyneed سلطان هذا الله وضع معه وينه هو هديه دينه كانوا ودلكي لبادي السوي مع سيد اللحدن كيو كلام دي waxay الله soo wada fariiso maqsinka waa okay soo hada maad garan laakiin de waxay ku xidhan tahay ajendaha ay la yimaadaan ee dhaxmara ayay ku xidhan tahay soo hada garmayst wali lama quusin oo mawjidii weyneed lama gelin halkaas ay ku xidhan tahay Soomaaliland madaxdeeduna inay macneeyaan iyadoo cad oo claar ay ka dhigaan yaa waxa ku kalifay iyo haday soo noqonayaan shuruudaha ay ku soo noqonayaan Soomaaliya madaxdeeda Xasan Sheekh Socdaana inuu keeno sida arinta loo fahmayo loo calashanayo ya loo liqayo dee imikana laga sii arka ficilkeega badde Xasan Sheekh uma baahna inuu sugo Soomaaliland inay hadana mar labaad keento cabashadeedii uma baahna Xasan Sheekh haduu madaxweyne dhaba yahay waa inuu ogaadaa intaanu xitaa soo galin madaxtinimada waxa Soomaaliland erdeeyay inay ku kalifeen inay ka orodo unionkii waa inuu darsaa u fahmaa intaanu madaxweyne noqon iminku madaxweyne yahayna hadalkeega badaa soo damaadkan taas ayagana laga filayaa shirka hadda meel lagu qabana Ingiriiska waxa la socotaa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay in uu ka qayb galin shirkaasi maxaa isleedahay anuu de hadii aan madaxweynaha la talinayo waxaan oran lahaa shirarka waaweyn caynkaas ka qayb gala laakiin intaydan ka qayb galin laba amuurood meel sii dhigta mid waxa weeye ajendaha shirka lagaga hadlayo qodobada lagaga hadlayo inaad ka mid noqotaan dadkii sameynayay oo wax meel la sii sameeysto oo ajenda la sameeysto in dusha aan la idinkaga dhufan soo garmayst haddii la casuumayo in la weydiiyo waa laga maarmaan aniguna aan hadladoon idhaaho haddaan shirka imanayo qodobada caynkaas iyo caynkaas iyo caynkaas lagu soo daro ajendaha sameynteedu waxay ka mid tahay madax banaanida iyo ka mid tahay haddii taa ilowdana waa lagu qaldi amba waa lagu kas in lagu qaldo amba waa lagu iloobi waa kow midda labaad ee Soomaaliland la haboon inay ka qayb gasho shirka aan oran lahaa waxa weeye shuruudihiinana meel dhigta iyaga oo cad meel dhigta oo ku kalsoon tihiin inaad guul ka gaari kartaan haddaydan guul ka gaarin oo leedin kaga adkaadana in noqonayso guushii wax ka weyn in leedin tuso idan hore u arag oo idinkana aad raaci kartaan amba aad fahmi kartaan laakiin shuruudihiina iyo doodiinu haydin adkaato meel sida u soo dhigta taana de anu wali ma arag waxa laga yaabaa dawladda oo qarsoonta laga yaabaa laakiin taana ma arag laakiin professor alaba ajendaha dadkan madaxda Europe iyo America waxa la socota already ajendaha laga wada hadlayo gacanta ay ku siiyaan oo dadka ay u wacdaan maba weydiiyaanba marka waxaad adiguna tiri waa inay ajendahooda hore u soo qaataan marka dadkan waaba loo yeeray iyagii baa marti ah waxaana loo sheegayaa ajendahan baa jira marka sidee bay u diidi karaan oo la imaan karaan waxyaabo cusub excellent waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan weey ana waxaan leeyahay way jiraan حقائق ودمدا واوين de saliga goglaya inay iyagu qayb weyn ku leeyihiin waxa shirka ka dhacaya ya amba ha sheegaan oo adduunyada ugu baaqaan amba ha u qarsoonaato sal intay ku qurxina ku golgaan iskaga baxaan oo sad doonta yeel ma jirayso danba ugu jirta de dantaas waxay tahayba xagga siyaasadooda iyo istaraatiijigooda soo maad gar laakiin ma waxaan gumaysi dhabo kula sidaas aan doonayeen inay yeeshaan yeeli wadana sidaas noqonayso taama waxa banaan qayb banaan ad xor u tahay inaad wax ku darsato waxana imika la soo gaarayba in la gartay hadaanay Soomaalidu iyadu wax keensan dhisma keeni kara inaanay cid u dhisi karin waa la ogaaday waana ka timaada dadka Soomaalida gudahooga marka waxa weeye adigu haddaanad albaabka garaacin oo shirka adigu casuunteen waan ka soo qayb galaya laakiin de shuruudahaygu waa kuwan ajendaha inaan sameeyo aan ka qayb galo sida loo sameeyo ma waxa doonayso inaan ka qayb galo sida loo sameeyo aan waxaan qabaacidu diidaysa inaan jirin professor madaxweynihii wadanka ayaa meesha socda marka
dowladda ingiriiskuma waxay leedahay Somaliland iyo Soomaaliya soo fadhiistaan mise ajandahoodu waxa weeye magaca Soomaaliya oo madaxweynaha baa meesha taagan marka madaxweynaha hadduu marba meesha joogo dadka dhan waa inay madaxweynaha ku daba feelaan oo gadaashiisa fadhiistaan taasi dhibaato ka taagan waxa haddii aad taas taado madaxweynaha Soomaaliya ayaa meesha jooga marka inta kale waa inay ku daba feeshaa halkan waxa jooga dad kale Soomaaliya dadkii abuuray ee dhaliyay ayaanu ugu horeynaa walowga Soomaaliya wayna kharajin weyd waxaanu goosanay oo nu garanay inaanu dibadda uga baxno sidii horeba annakoo soo cusnoocidaan nagu khasbin aanu u soo galnay aanu dhagaxii ugu horeeyay u dhignay ayaanu imikana goosanay wayna kharajin weyd waa ka wada hadlaynaa soo fadhiista miiskii wadi dhageysade ayaan ka baxayna marka hadday sidaa yiraahaan marka dawlad baanu dhisanay ummad gooniyaanu noqonay bay leeyihiin mar hadday dooda caynkaas keenaan anu waxaan qabaa inay tahay dood u baahan si farsamo leh in loo galo oo lagu kalifi karayn in lagu yiraahdo mayna waxa cid dhageysan maysee xasan sheekhuun soo daba gala in la yiraahdo anu u maleyn maayo inay taasi dhacayso ya 20 sanadoodna way soo xukumayeen adduunyay soo dhisteen iyagoo markii hore dhagaxa ugu horeeyay dawladnimada keenay unionka imikana 20 sanadood hawlahoogii maamulayay oo is hagaajiyay wax dhistay in lagu yiraahdo waxaas oo dhan wax kama jiraan marka xasan sheekh soo daba gala ya ma soconayso ma dhaqaaqaysa taas marka ingiriiskuna way ogyihiin mareykankuna way ogyihiin adduunyaduna way ogtahay soo damaad garan marka in laga shaqeeyo weeye labadani sida ay u wada hadlayaan in laga shaqeeyo weeye haddii mid lagu yiraaho intaan laba bilaabinba hoosta ka soo galka kale oo adigu ka hoose waa cid ogolaanaysa anu garan maayo Somaliland professor adu waxa tahay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada dalka Soomaaliya goorma kugu dambeysay Muqdisho aniga Muqdisho waxa igu dambeysay bishii October dabayaaqadeedii ilaa imikana maad noqon kuma noqon waxa jirta inaan maqalnay jagada xildhibaannimada inaad iska cashishay bal arintaasi faahfaahin naga sii waa dhab waraaqdii aan kaga baxay baarlamaanka jagada kaga degayay xildhibaannimada waan u qoray gudoomiyaha baarlamaanka Dr. Jawaari waan u qoray waa nin dadnimo weyn leh oo aad iyo aad aan u ixtiraamo isna waan ka xumahay buu arintaas laakiin haddana waxba ka qaban karin waan ku fasaxnay marka warqadii saxiix sidaas ayaan ku dhameynay shalay qofkii ibedelayna waa wadadeedii buu marayaa ee aniga kursigan ku fadhiyay qaadanayay xildhibaannimada Soomaaliya taagani maanta ma aha tud ay dad soo doorteen haddii dad soo doorteen cod la siiyay aad baad u kurban lahayd oo wada waa arin aan ciyaar lagaga degin way laakiin de waxa weeye wax 4.5 waxaan oo dhamay ku dhisano waliba si fool xun ah saadamad 4.5 iyo lacag lagu iibsado intaas ay ahayd xildhibaannimadu oo waad yaabaysid xamar hadaad joogto waan joogay anigu waad yaabid waxana baarlamaan sidan lagu doorto anigu de ma arag inkastoo dad miisaan leh oo aqoon leh oo ilbaxa aan ku barto baarlamaanka ku jira oo qaar baarlamaankii hore ay ka soo hareen qaarna ay cusub yihiin laakiin baarlamaankan ballaaran ee 275 kan anigu kamid ahaa sida lagu soo doortay soo yimaadeen waa qabiil iyo laaluush ay badankeedu ku tahay Soomaad gar kolka anigu waxaan isiri dantii Soomaalida hadii aan wali raadinayo oo de qof adamqanaysa tahay malaha meelo kale inaad ka raadiso danta oo aad hawlahaaga iyo wixii investment aad sameynaysa aad geliso ayaa loo baahan yahay laakiin de qowmiyadii ummadda Soomaalida danteedii xanuunka ummadda Soomaalida ay qabto midaan ka tagi kara ma alaaba dadka Soomaalida waxay yiraahdaan professorka waxyaabuhu rabay oo ka damacsanaa dalka Soomaaliya ayuu waayay sababtaas ayuu hadda isaga casilaya baarlamaanka arintaas maxaa ka jira de waxba ka jira taas oo de ma hadda waxaan waxba ka jirin ma waxaan doorashan galay aniga xisbigayagii waanu dadaalnay waan diidnay inaanu laaluush bixino oo cod iibsano waan diidnay inaan musuq maasakh wax ku doonano soo adamaad garan waan diidnay qabiil inaan wax ku doorano soo adamaad garan marka de waxa soo dhamay way shaqayn waayeen soo adamaad garan way shaqayn waayeen inkastoo dadka weynaha markii la weydiiyay baarlamaanka ka baxsan dadweynaha magaalada Muqdisho la weydiiyay anaka magacayaga iyo xisbiga iyo musharaxnimadaydu ay meel sare ahayd oo mararka qaar kood ay ugu sareysay way socon weydi xasan marka waa la doortay baarlamaanka intii cod baa la siiyay dadkii codka marka dambe siiyay waan kamid ahaa saas loogu duceeyay soo adamaad gar laakiin de doorashada aan galay wax badan oo kale ayaa i bartay way bartay
oonan hore sidaa u sii ogeyn bay soo bartay maxaa ka mid ah dee waxaa ka mid a horena wataan u sheegay waxaa ka mid a waxaan ogaaday haddaad qof reer waqooyiya tahay oo somaliland ka yimid inay adag tahay absolutely ay adag tahay haddaanayba ahaynba dee albaabku beri ay ku gudban tahay inaad madaxtinimo soomaaliyeed ku guulaysato sidii loo dhaqmay ilaa maanta loo dhaqmay dee waxaana ka markhaatiya 50 sannadood baynu wadanka soomaalida xor ah 50 sannadood madaxweyneynu lahayn qof reer waqooyiya weligeed madaxweyne waa la soo doortaa Soomaa professor doorasho madaxweynayaasha ku yimaadaan hadday ku yimaadaan haddaan dadkii la dooran say ku soo galayaan hadday ku yimaadaan 275 weeye baarlamaanku waxaan 60 qof ahayn baa reer waqooyiya baarlamaanka 60 4.5 baa loo qaybsaday dee aanu reer waqooyi baan ka hadlay taasina qaybtu noocyo badan bay lahayd soo damaad gar meeshaan tagaba aniga waxa la ugu oran jiray reer waqooyi madax kama noqon kartaan waayo waad maqan tihiin ayaa lagu oranaya soo aad garmaysa amba qaarkood intay isloobeen ku oranayaan maba geedaanba madaxtinimada lagu oranayo soo aad garmaysa anuguna waxaan ku yiraahdaa marka waad maqan tihiin wardeydina waad isku maqan tihiin oo cid kale dad kale ma arkaysaan bad boqol runood hadii la idinkum ba is eegaya soo aad garmaysa de anu waxaan u bixiyay taa duopoly oo laba company oo wax walba leh soo aad garmaysa labadii company wax walba lahaa cid kale wax kale inay u ogol yihiin dhacayarada meelaha reeraha ku dhacaya ma ogide laakiin cid kale wax ka siiyaan uma ogola marka waxyaabo badan oo aad u fool xun oonan hore sida u sii ogeyn ayaan soo arkay professor waxa tahay professor jaamacadda ka dhiga siyaasadda iyo dhaqaalaha siiba kan adduunyada xilligii dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ay ku baahnayeen waa xilligan marka ma la isdhihi karaa professorka qof kasto aqoon leh markuu dantuu rabay uu gaari waayey ayuu isaga tegaya wadankii very dee dantaan rabay hadday tahay dee aniga tu shakhsi ahoo aan doonayo in anigu amba jeebadaha ku buuxsado amba dan yaroo shakhsiya amba tu xaafadeed aan wato dee dacwadda waa laygu qaadi karaa marka waxaa la odhan karaa Axmed Samatar dee wuxuu u soo hortay dantii yaree shakhsi uu raadinayay ayuu waayay anu waxaan ahay qofka qura dhowr iyo 20 qof baa madaxtinimada u orday waxaan ahay qofka qura ee ummadda Soomaalida ugu baaqay intaan doorashada la gelin horteed baarlamaanka hortiisana ka sheegay inaanan mushaar wadanka ka qaadan in $1 ku shaqeeyo bishi $12 inaan ku shaqeeyo sanadkii waxaan u tagay waxyaabo badan oo aan arkayo oo qaarkoon aan si buuxda 20-30 sanadood u dirsay inaan wax ka saxi kara ayaan u tagay Soomaad galay aniga taasi dan shakhsi oo igu jirta ma jirto jaamacad wanaagsan oo xoolo badan leh ayaan joogaa diin baan ka ahay 18 sanadood professor buuxo oo kursi maxaan ku lahay kule ya James Wallace professor of international studies ayaan ka ahay labada magaalo ee wadankan ugu fiican ee lagu noolaan karo ee milyuun ka badan ayaan degana oo St Paul iyo Minneapolis waxa iga maqan bad garan maayo aan ahayn xanuunka dadkaaga inaad wax ka qabato soo aad garmaysid ayaan ballankana waan qaaday dee taasi haddii dadku ay u qaataan wixii uu doonayay buu waayay warde waxaan doonayaa maxay taabay noqonaysa waxa disappointment aniga qalbi jabiyay waxa weeye dee waxaan arki waayay ay muuqatana arrimihii aan doonayay inaan ka hadlo oo debate-kayga la galo oo tartankayga la galo inaanay kuwaasi xisaabta meel dambe ay kaga jiraan ee waxa lagu xisaabtamaya ay tahay magaaladan Muqdisho xaafadee ka talinaysa reerkee ka talinaysa banaadir reerkee ka talinaya soo aad garmaysid wadanka reerkee ka talinaya waxaas lagu wada hadlaya soo aad garmaysid dee taasina anigu waxaan markaa goostay inaanan u qalmin inaan bulaacada dhex kalo markaa meel kale ka raadiyo dantii Soomaaliyeed taaba hadaa sheegtay soo tan aad ku timi ma 4.5 adigu waa Soomaaliya kulad ma hasan ku imid baaban ogahay foolxumadeeda Soomaaliya kula ma soo aad garmaysid haddii dad Soomaaliyeed ay codeeyeen de waajib bay iga saarlaan laha waxa weeye dadka Soomaaliyeed ku codeeyay ee nooc walba leh degmada ku nool nooc walba leh qabiil kasta leh ya ayaad codkoogii sidaa soo aad garmaysid marka ciyaar ma hadda in warqada dib ugu dhibto tidaado ma rabo laakiin waxa weeye de reero waliba dadkii salaadiinta dhabta u ahaa ay ka maqan yihiin ya oo qaar dad ay soo wakiisheen ay magaca qorayaan wuxuna ay tahay musuqmaasuq iyo jabjab inta la isku keenkeeno ya in halkaasi deetana madaxtinimadii Soomaalida laga raadiyo ayay noqotay aniga taasi dandankayga waan sheegaan oo xamar joogaan sheeg waxay ugu noqotay waan liqi kari waay soo aad garmaysid laakiin dad kale Axmed Samatar wixii uu doonayay ayuu waayay
waana dhab waana been waa dhab oo dee waxaan doonayay waddanka intaan madax ka noqdo in wax badan aan ka soxo waa se been anigu dan yaroo shakhsi oon kaga noolaado oon kaga shaqaysto ujeedadeedu ma ahayn. Okay, professor waxaa la socotaa safaaradda ingiriiska in laga furay magaalada muqdisho Right. xoogaa yar iftiinkii inuu soo baxay dalkii Soomaaliya sidee baa u aragtaa? de kolleyba haddii dagaaladii magaalada muqdisho ka taagnaa ay soo dhammaanayaan oo waxoogaa dhiirigelin adduunyada ay gashay in safaarada la keeno waa guul wey. aniguse waxaan qabaa safaaraduhu markay in yar qadhaadhaato waa kuwa ugu horeeya ee orda ayay noqdaan. horena waynu soo aragnay adduunyada kalena waa caynkaas. aniga safaaradaha ajnabigu inay yimaadaan magaalada muqdisho ay fadhiistaan waxba kama qabo dee waa wax soo kordhay laakiin taa maha xisaabtu haddii waddanka la dhisayo. xisaabtu waxa weeye adigu safaaradaha adduunyada kale aad geysato ya ilayn safaaradda 2-3 qof baa halkan u jooga ingiriiska adigu maxaad ingiriiska dhex geysan oo dhex gelaya dhaqaalaha dadka ingiriiska bayac mushtarigoogii jaamicadahoogii maxaan ku dhahay dowladoodii technologygoogii yaa dhex gelaya oo England iyo dowladda iyo ummadda wax kaaga keeni kara safaaraddu way ilaa maanta ma hayno laba amuuroodba lagama hayo dowladda xasan. kow lagama hayo fikrad siyaasadda dibadda ee ummadda Soomaalida waxay noqonayso waqtiga cusub meel ay ku qoran tahay haddaad rabto ii soo sheeg visionkeegu meel uu ku qoran yahay. safaarada cusub baa hadda la furay oo safaarad baa la furay dawaa albaab baa la furay in hebel ha la geeyo way in hebel oo hebel ha la geeyo amba in hebel oo hebel ha la geeyo way soomad gar dowladii waa in leedahay strategic thinking. ingiriiska waxa la yiraahdaa doctrine ya Obama doctrine Bush doctrine siyaasadda dibadda ee Soomaalidu sidaas way amuuraha ugu waaweyni waa kuwaas halka laga doonayo waa halka iyo halka dadka doonaya sida inay u eeg yihiin. safaaradahan la furay lacagta xagee looga keenaya hadda sheegayso safaarada cusub baa la furay baa la yidhi xagee looga keenaya lacagta maanta waxaan war haynaa oo la leeyahay baarlamaanka la fahantiisii baan mushaarooyinkii qaar la siin xagee looga keenaya inay safaaradii noqoto meel inta madaxweynaha loo tago amba ra'iisul wasaaraha la yiraahdo inay hebel amba heblaayo hala noo geeyo safaarad oo safaarad la buro loogu markaa 4.5 deetana lagu jufeeyay halkaas hadday noqoto safaaradda dhismadeedu taasi waxa laaliyo waxay keenaysaa ma jirto khasaar unba iyo qalbi jab unba ka imanaya. strategic thinking waa inaad dhigataa markaad dhigatana waa inaad heshaa dadkii waxaa soo goynayay keenayay goolkaas soo dhalinayay iyo wixii ay ku noolaan lahaayeen waa inaad keentaa. anu maalin dhaweyd waxaan la hadlay safaaradda Soomaalida United Nations soo tamaadka waxaan ku yiri iga warrama meeshaas maxay siday tahay dad ka shaqeeyeen qaar la waxay igu yiraahdeen safaaradda xafiiskeega way dildilaacday way darooshimaysay foolxumadeeda iyo siday noqotay wax la arki kara ma kolka marka aanu la kulmayno dadka kale aanu appointments la samaysanayno safaaradda kulama ballanno jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa meelaha shaaha laga cabay lounges iyo meelaha caynkaas ayaanu kula ballanaa oo kala sheekaysana gurigii safiirka uu ku jiri jiray jamciyadda qurumaha ka dhaxaysana waxa la soo sheegay intuu qurmay u baabaay inuu iska xidhan yahay soo aad garanaysid marka safaaradaha la iska furay war waxaasi waa wixii hore inoo baabiyay aan cilmi ku dhisnayn strategic aan ku dhisnayn soo aad garanaysid ee ujeedadeedu ay tahay madaxweynaha halkan wax yar ku haysta qolinka caynkan oo hebel baa yimido de waxay doonayeen malaade qof in loogu daro halkaasoo bal markaa safaarada halka laga furo hebel laga dhigo safiir waxaasi waa wixii ina baabiyay waa waxaan u leeyahay markaa xasan sheekh wali namuutusin waqtigani inuu yahay waqti cusub. aad baa maasanta professor gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay maxaa kula talin lahayd dadka Soomaalida ee dunida gacaladeeda jooga siyaasad ahaan maxaa Soomaalida kula talin lahayd? daan waxaan ku leeyahay marka ugu horeysa war buuxa qaat marka labaad warkii naabuuxa ha ka talaabsado waa reehbel iyo halkan uu ka yimid xaafadan iyo waxa ka talaabsado oo sida wadankii oo dhan u wada eeg ilbax oo ka qayb gal ilbaxa adduunyada ee dhaafay reehbel dhaaf ee ku faanaya citizen anu Mareykan waa degane wax ehela oo maxaan ku ilaahay qabiil oo Mareykan oo dhan iga jooga ma jiro soo aad garmays waxa iga badan adigana ka badan inta aan Soomaali ahayn ba ka badan waxaynu ku joognaa halkan maaha Soomaali baad iska daa reehbel baad tahay waxaynu wadankan ku joognaa adiguna ku qurux badan tahay anaan ku qurux badanahay waxa weeye waxa laynoo ogolaaday inakuna aan qabsano ka faa'iideysanay inaynu nahay citizens dad wadanka qayb ku leh soo aad garmays iyadoo aynu dhawaan nimid soo aad garmays de Soomaalida waxaan ku leeyahay meel kasto joogto ilaa halka aad soo gaadhaan
oo citizenshipku wuxuu yahay aad barataan ya ma dhaqaaqaysaan soo aad garmayst ilaahayna ducadiisu idiin inumayso ilaa aad fahamtaan ya adduunyada sida loo dhisto iyo edabteedu waxay tahay soo aad waa kow midda labaadna de inaad ku khamaartaan kartida iyo daacadnimo iyo cadaalad waa daacadnimo iyo cadaalad iyo karti inaad ku khamaartaan soo aad garmayst oo aad ka dhigataan hadafka aad la soo toosaysaan subax walba soo aad garmayst wadankana in la wada leeyahay soo aad garmay in la ogolaado waxyaabaha caynkaas haddaynu ka faa'iideysano xurriyadda maskaxda iyo qalbiguna ay bannaan tahay oo hadalka aad ku hadli karto adigoon cid maxaan ku dhahayay ceebeynayn maskaxdaadu ay ballaaran tahay ay xorriyad leedahay afkaaguna xorriyad leeyahay qalbigaaguna uu xorriyad leeyahay dadka ilooba runta iyo xorriyadda madax bannaanida ilooba marka dambe addoon bay noqdaan cid kale unbaa u timayto oo gumaysataa inta iyagu isgumaystaan baa dusha dambe lagaga yimaada marka runta iyo xorriyadda maskaxda iyo qalbigu waa lagama maarmaan haddaynu intaa helno cadaalad iyo karti lagu daro waxaan qabaa in ummadda Soomaalidu ay soo noolaan karto professor aad baa mahadsan intaan barnaamijka gabagabeyn waxaa jira haddaynu nahay Universal TV dadka noo yimaado marka qaarkood waa la kaftanaa waxaa jira dhinaca fanka si aad baa fanka u jeceshahay weliba heesii hore aad baad uga heshaa marka caawa maxaad noogu soo gabagabeynaysaa caawa anigu idin heesi maayo idin iyo adiga iyo dadka walaalaheena ee adduunyada inaga dhageysanaya heestana waa layga yaqaanay oo dadkii ilaahay ku manaystay ayaa meel walba jooga fanaaniintii waaweyneed iyo kuwa yaryarba waxaan soo oran lahaa marka dambe malaha de kaman intaynu soo qaadano qof aad u tumaya ayaynu waxoogaa garaaci karnaa laakiin intan aan ka oran lahaa arintan fanka waxa weeye fanku ummadi haddii ay iska xidho hees iyo gabay iyo riwaayad iyo buraanbur iyo geeraar mahma hadday iska xidho artska waxa la yidhaha hadday iska xidho fanka hadday iska xidho way qalbigeegu wuu engegaa qalbigeegu marka dambena isma afgaran karto hadda iyagoo afku wada hadlaya isma afkan garan karaan waayo afkanan kugula hadlayo dee wuxuu leeyahay jaranjarooyin buu leeyahay dadka fanaaniinta iyo abwaanada unba taa soo saari kara oo ilaahay hibo gooniya u siiyey dhulka laga qodo dhuxusha godad waaweyn baa la galaayo dhuxusha laga soo qodaa coal mine baa ingiriiska lagu yidhaha wuu dumaa markuu roob iyo xaynkaasi da-aan amba gariir u dhaco waqtigu adkaado shimbir ayaa ku dhex nool dhulka boholaha dhuxusha laga qodo laga soo saaro shimbirtaas canary baa af ingiriisiga lagu yidhaha way ku nooshahay halkaa waxayna aad iyo aad anteenaheega iyo dhegaheega iyo jirkeegu ay markiiba ogaadaan hadduu gariir soo socda amba godkaasi bohoshaasi ay dumayso marka si gooni ayay u qaylisaa oy kuwa kale ugu sheegtaa gariir iyo dun baa soo socda ka baxay ayay tidahda laakiin iyada laga yaabaa inay wax ku dhacaan hadday dhibaato iyada ugu horeysa waxay wax ku dhacaan amba baad ka go'o amba lagu ka jabto amba kiciba kari weydo waxa la yidhaahaa canary in a coal mine dadka fanaaniinta iyo abwaanada Soomaalida waxay inoo yihiin adduunyada kalena ay u yihiin shimbirtaasoo kale oo dhibaatada soo socota garan kara inta kale iyadoon weli aanay indhaha ku hayn amba qalbigooga amba jirkooga aan weli ogeyn si garan kara oo halkaa ka hadla dadka shimbirta iska dila ya marka dambe waxay ku dambeynayaan gariirkii iyaga oo qoslayo oo si kale u kala oo iska sheekaysanay inuu gariirkii ku yimaado ku dunto adduunyadooda halkaa ku dhamaato shimbirtaas canary in the coal mine waa fanaaniinteennii wey abwaanadeennii wey maanta dareeyan weyn baa mid walba haysata magaalada muqdisho waxaan ugu tegay Siciid Harawa ayaan soo raadiyay 70 jir da'diisu dhaaftay waan la sheekaystay wuxuu yidhi habeenkii ma socdo kamankii hawlihiina meel baan iska dhigo cid ku dhageysanaysaa ma jirto baxsan baa la ii soo sheegay oo kulka daa oo magaalada ku nool sidaas oo kala meel walba sidaas ayay fanaaniintii u dareenyeysan yihiin inta wadanka gudihiisa joogta waana laga xiray albaabadii soo aad garmayst dibadda ku noolina dee daranyo xoog leh ayaa haysato oo maanta Xudeydi anu dawaanigii halkan keen Xudeydi wuxuu degan yahay London waa dhowriya 80 jir soo damaad garan inuu wadankiisii joogo isagoo daadaas caruurtu ay joogto kamanka u tuso sida loo sameeyo ayay ahaan lahayd soo aad garmayst Cabdullaahi Qarshi isagoo kalidiya ayuu magaalada ku dhintay isagoo dhowriya 80 jir oo murugo
iyo au dhintay cudur iyo daran iyo au dhintay marka waxaan leeyahay abwaanada iyo fanaaniinta waa shimbirta dadkii iska dilaa marnaba ma gartaan waxa ku soo socda iyo masiibooyinka ku soo socda marka dambana godku wuu ku dumaa halkaas ay dunyadooda ku dhamaata taas aynu iska ilaalino fanaaniintana hal la galo meeshii la joogaba dibadda iyo wadanka gudihiisa in la xanaaneeyo daranyada laga ilaaliyo ya kuwa gaboobay la dhadhabo ya oo la hagaajiyo oo la asturo ya loo sameeyo dhulkay ka heesayeen riwaayadaha ka dhigayeen gabiga la soo bandhigayay in la soo nooleeyo dheecaankii ummadda Soomaalida ya dhigii ummadda Soomaalida jirkeyga waday in la soo nooleeyo waa laga maarmaan aad baa mahadsantahay. Waa kaaga mahadcelin waqtiga na siisay. Thank you.